ardaygii beddelay qoys dhan noloshooda iyo habdhaqanka maclimadiisa. Annagana inoo ah dersi aan wax ku qaadano. Waa muuqaalkeena maanta. Intaan u gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan channelka ku soo biir, muuqaalka like garee, saaxiibada la wadaag. Waxaa la sheegaa maclimad ayaa maalin ardaydeedii u dirtay tacbiir si ay u kororto luqadooda iyo xirfadooda qoraanimo. Waxay ku tiri, haddii aad ibni aadan noqon lahayn, maxaad jeclaan lahayd in aad noqoto? Ka qor hal page ayay ku tiri. Markii ay dhammeeyeen, warqadihii ayay ka soo urursatay, gurigeedii ayay la timid. Waxay bilowday inay fiirfiiriso warqadihii ardadu ay qoreen. Intay ku guda jirtay hawshaasi ayaa maclimadii ilmo dareerta. Ninkeedii oo aan ka ag fogeyn ayaa ku yidhi, maxaa ka ilmaysiiyey? Saa waxay ku tiri, ardaydeedii ayaan u diray dalabkan. Arday ka mid ah warqadii uu qoray ayaan la ooyay. Wuxuu yidhi, muxuu qoray ardayga? Waxay bilowday inay si kor ah u akhrido si ay u maqashiiso odaygeedii. Ardaygii wuxuu yidhi, waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo telefoonka guriga si aan u helo boos ii gaara, xanaano joogto ah, ka warhayn aniga ii gaara. Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo gacanta aabbahay marka uu shaqada ka soo noqdo, haddii xitaa uu daalan yahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo wehelka hooyaday xitaa haddii ay daalan tahay oo xanaaqsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa inay isu kay dagaalaan walaalahay ila joogayga iyo aniga ila saaxiibadeyda. Waxaan jeclaan lahaa in la i dhegeysto oon su'aalo la i weydiinin, la igu dhibin nolosha. Aad ayuu odagii u murugooday. Wuxuu yidhi, ba'a waalid baas baa hele. Maclimadii waxay ku jawaabtay, ardayga warqadan qoray waa wiilkeenna. Madaxa ay iskula noqdeen maclimadii iyo odaygeedii. Waxay ahaayeen kuwaan ilmaha waqti siinin, la sheekaysanin, keliya waalidnimada inta annaga u naqaano kula dhaqda oo aan ilmaha ixtiraam iyo ihtimaam gaara siinin. Annagan dersi ay noo tahayo ilmaheena inta inooga baahan yihiin dharka iyo cuntada in ka badan ayay u baahan yihiin in lala saaxiibo, lala sheekaysto, la fahmo, la dhegeysto dalabaadkooda, lagana soo qaado sida qof weyn oo guriga ka mid ah. Taasay ku soo gabagabeynayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.